kulanti wanaagsan habe wanaagsan wararkan caawa eegi doona waxa ugu waaweyn madaxweyne Dani oo kulamo siyaasadeed ka wada magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug amar ayuu mar kale bixiyay ku saabsan ciidanka ku sugan gobolka Mudug ee Puntland waxaan muuqaalkan ku soo koobaya shirarkii ugu dambeeyay ka dhacay madaxtooyada magaalada Gaalkacyo dalalka diriska la Soomaaliya walaac ka muujinaya inay Soomaaliya dib u howlgeliso diyaaradii Soomaaliya Ireland iyadoo warbaahinta dalalka geeska Afrika ay qaada dhigeen warbixinada ay ka qoreen falcelinta ay ka sameeyeen iyo siday u arkaan ayay soo koobaya duqaymihii dhawaan ka dhacay xeebaha gobolka Nugaal ee Puntland agagaarka degmada Eyl warar ayaa ku soo kordhay meydadka xubnihii la dilay ayaa lagu aasay deegaanka Garmaal halkaas oo la sheegay la keenay meydkood xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya oo isku bedelay awood kadib kulan ka dhacay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale fariinta gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Turkiga waxa la leeyahay wuxuu markaan doonayaa isbedel kala duwan oo ka sameeyo Soomaaliya maadaama uu la wareegay darafyo muhiim qodobadaas ayaan caawa ku eegi doonaa muuqaalka waxaan ku dari doonaa fariinta gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka ee uu kaga hadlay xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya soo dhawaada habeen oo dhowrkii maalmood la soo dhaafay halkaas ku sugnaa ayaa Gaalkacyo kulan kula yeeshay dhinacyo kala duwan oo bulshada gobolka ah munaasabadaas xubnaha ka qayb galay ayaa lagu sheegay inuu ku bixiyo amar weyn madaxweyne Siciid Dani kaasoo ku saabsan amniga gobolka Mudug dhinaca Puntland Dani ayaa la sheegay in la dhayalsan ciidankii u gudbay dhinaca Galmudug oo ku sheegay in laga saaro xerada magaalada Gaalkacyo sidaas daraadii in ciidankaas xilli walba ay ku soo rogaal celi karaan gudaha magaalada Gaalkacyo dabcan aysan ka fogeyn oo Gaalkacyo dhinaca kale ay ka joogaan Dani ayaa sidoo kale saraakiisha ku amray feejignaanta iyo heeganka in la xoojiyo isagoo markaas u sheegay darafyada inay muhiim u tahay xoojinta amaanka qodbad ayuu halkaas ka jeediyay aad u dheer taasoo lagu sheegay in looga hadlay xaaladda guud marka la eego fariintiisa kulankan ayaa sidoo kale looga hadlay amniga arrimaha bulshada iyo sidoo kale mashaariicda sida xukuumaddu ay sheegtay ka fulinayso gobolka Mudug Dani ayaa lagu wadaa saacadaha soo aadan inuu ku laabto magaalada Garowe ee caasimada maamulkaas iyadoo sidoo kale halkaas lagu go'aamiyay ciidanka danab ee ku sugnaa magaalada Garowe inay heshiis la galaan xukuumadda xogtaas wixii ka soo baxay diban ka faahfaahin doona dalalka diriska ah ayaa markaan qaada dhigaya in Soomaaliya dib ay u howlgeliso 35 sano kadib diyaaradii Soomaaliya Ireland taasoo muujinaysa in warbaahinta dalalka geeska Afrika ay qaada dhigayaan iyadoo dhawaan lagu dhawaaqay in shirkadda diyaaradaha qaranka Soomaaliyeed ee Soomaaliya Ireland la filayo inay dib u bilowdo duulimaadyadeeda bisha September ee sanadkan kadib in ka badan 35 sano oo aysan shaqayn tan iyo burburkii dawladda dhexe Soomaaliya dhawaan ayay markii agaasimaha duulista rayidka Axmed Macalin uu sheegay in la soo gabagabay diyaar garow markaas loogu jiray dib u howlgelinta diyaaradan isagoo xusay in duulimaadyo cusub la filayo inay bilowga ka bilowdo gobolada iyo sidoo kale dalalka diriska la Soomaaliya dib u soo noqoshada Soomaaliya Ireland ayaa noqotay tallaabo lagu soo celinayo shirkad diyaaradeed qaran muddo dheerna aysan lahayn Soomaaliya shirkad calankeedu ku buufsan garoonka caalamiga ah Cabdulle ee Muqdisho ayaa xilligan martigeliya shirkado diyaaradeed oo caalami ah waxaana kamid ah shirkadda Ethiopian Airlines Qatar Airways Turkish Airlines kuwaas oo isku xira Soomaaliya iyo dunida dawladda Soomaaliya ayaa sanadihii la soo dhaafay dhowr jeer shaacisay qorshayaal lagu soo celinayo Soomaaliya Airlines hase yeeshee waqtiyo kala duwan ayaa loo qorsheeyay dib u bilashada shirkadda waxaana
dib u dhacay ee arrimahaas qorshihii loogu talagalay. dowladda Soomaaliya ayaa bishii July ee sanadkii taga ku dhawaaqday inay iibsato 2 diyaaradood, balse warbaahinta Kenya tan Ethiopia ayaa si xoogan u qaada dhigay arrimahaas iyagoo ku sheegay Soomaaliya markaan haddii ay howl geliso diyaaradda Soomaaliya Airlines 2 sano gudood ama sanad gudood ay kaga hormari karto dalalka deriska sidii sheegeen way warbaahintood. haddaba halbowlaha hakadka ku yimid dhaqaalihii Soomaaliya kadib dagaaladii sokeeye waxa ugu dambeyn si buuxda loo joojiyay sanadkii 1991. qorshahan hadda jira ayaana hirgelintiis lagu sheegay inuu bilaabanayo bisha September. wargeyska lagu magacaabo The Bluebag ayaa qoray warbixin dheer oo uga faalloonayo muhiimadda diyaaraddaasi u leedahay Soomaaliya iyo sidoo kale natiijada ay u soo hoy karto dalalka caalamka sidoo sheegay isagu weeyaan. dhinaca gobolka Nugaal ayaan eegaynaa. haddaba kadib duqeymo ay fuliyeen diyaarado dagaal oo loo malaynayo inuu lahaa Turkigu taasoo laga fuliyay deegaan lagu magacaabo Garmaal oo hoos taga degmada Eyl ee gobolka Nugaal. kadib maalin ka hor duqeyntaasoo lagu dilay 4 wiil oo Soomaali kuna eedeysan inay ka mid yihiin burcadbadeeda xilli dooni ay wateen lagu qaasay lagu gubay xeebta iyadoo wiilashaasi lagu aasay deegaan xeebeedka Garmaal ee gobolka Nugaal dhulka maamul goboleedka Puntland Soomaaliya. ehelada dhalinyaradaasi ayaa ku eeday dowladda Turkiga inay xeebahaas ku laysay dhalinyaro Soomaaliyeed oo kalluumaysata sida sheegeen way ehelada. warbaahinta gudaha iyo tan dibadda ayaa baahiyay in rangaas Soomaalida 4 ah la dilay iyagoo dooni sahay ugu siday koox burcadbadeed ah oo haysata maraakiibta kala duwan iyadoo laftooda lagu tilmaamay inay kooxdaasi ka mid yihiin inkastoo aan la xaqiijin si rasmi. markabkan oo markaasi la sheegay in laga soo qafaashay xeebaha dhinaca Yemen ayaa hadalhayn ka abuuray waxaana la sheegay inuu sida hub dhinaca Turkiga laga keenay. markabkan oo ka diiwaan gashan dalka Comoros Turkiga ayaa la sheegay inuu duqeymahaasi fuliyay. 4 ruux ee duqeymahaasi ku geeriyay ayaa lagu aasay deegaanka Garmaal ee gobolka Nugaal. weli ma jirto xaqiijin rasmiya maraakiibta la haysto aaga lagu hayo waxaana xogtu sheegaysaa dhaqdhaqaaqyo dhinaca cirka inay ka socdaan aagaas taasoo suurtagal ka dhigaysa inay jiri karaan isbeddello waaweyn marka la eego xogta rasmiga ah. wararkaasi wixii ka soo kordhay dibaan ka faahfaahin doonaa. gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Jaamac oo lagu xamanayo inuu Turkiga saameyn xoogan ku leeyahay ayaa qodbadan ka jeeday shirki maanta. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وزير ku-xigeenada taliyaasha xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka danjiraha dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya saraakiisha labada dhinac waxgaradka bahda waxbarashada ganacsatada iyo bahda saxaafadda dhammaan salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh. waa maalin qiimo badan oo aan aaminsannahay in taariikhda Soomaaliyeed ay qiimo weyn ugu fadhido inaan maanta xusayno 15 guuradii dib u cusboonaysiintii xiriirka walaalnimo ee qiimaha badnaa ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Turkiga. xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga waxa uu soo taxnaa tan iyo qarnigii 16aad ee miilaadiga xilliyadii ay khilaafadii Cusmaaniyiinta xukumayeen Yavuz Sultan Selim iyo Kanuni Sultan Suleymaan oo ay Turkidu gurmad walaalnimo ugu yimaadeen Soomaaliya si ay uga caawiyaan gaashaanbuurtii waqti xilliyadaasi
dalkeena ku soo duusay ee shisheeyaha ahaa ee uu hogaaminayay dhinaceenii Soomaaliyeed Imaam Axmed Gurey hoggaanka u hayay halganka qaranka lagu xoreynayo ee Soomaaliya maanta oo kale ayay walaalaha Turkigu u soo gurmadeen Soomaaliya xilligii aan ugu baahnayn gurmad walaal weyn oo noo heeliya waxaa sharaf weyn ii ahayd inaan qayb lixaad leh ka qaatay sidii dib loogu unki lahaa xiriirka walaalnimo ee labada dal aniga oo diblomaasi ah aniga oo taliye sirdoon ah iyo aniga oo wasiirka cadaaladda gaashaandhigga dekedaha iyo gaadiidka badda ahba waxaana rajaynayaa inaan si weyn uga sii shaqayn doono sii xoojinta xiriirka labada dal maanta oo aan ahay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed si waafaqsan dabeecadaha shaqada xilka aan qaranka u hayo waxaan marag ka ahay in xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya uu yahay mid miro dhalay waqti aad u kooban arrintaasna abaalkeeda iyo xikmadeeda waxaa lahaa madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan iyo madaxdii qaranka Soomaaliyeed ee xilalka isaga dambeysay oo dhammaantood si niyad sami leh ula falgalay xiriirkan istiraatiijiga maanta xiriirka labada dal waxa uu soo gaaray halka ugu sareysa ee uu gaaro xiriir ay laba dal yeeshaan oo ah iskaashi difaac dhaqaale sirdoon iyo diblomaasiyadeed waxaan alla ka barinayaa in uu ka yeelo mid waara mar labaad waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo ka soo qayb gashay soona qabanqaabisay munaasabadan weyn waxaana leeyahay madaxda labada qaran hambalyo waxaan si gaar ah rabaa inaan halkan ugu mahadceliyo dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo xiriirkan qiimaha leh ee walaalnimo si mug leh oo miisaan leh uga qayb qaatay si niyad sami lehna mar walba dadka Turkiga iyo dawladooda ula dhaqmaayeen waxaan xasuustaa maalmihii ugu cusleed ee dawladda Turkiga soo maray oo uu afgembi ka dhacay dawladda dalka Turkiga dadka Soomaaliyeed habeenkiina ma hurdin maalintiina waxay taagnaayeen laamiyada iyaga oo garab taagan dawladda Turkiga taa waxay ku tusaysaa in shacabka Soomaaliyeed ay raali ka yihiin taageerada iyo walaalnimada dawladda Turkiga mar labaad waxaan leeyahay guud ahaan labada shacab iyo labada dawladoodba hambalyo 15 guuradii imaashihii madaxweyne Erdogan uu ku yimid dalka Soomaaliya oo ku astaysan maalin labada dal xiriirkoodii diblomaasiyadeed dib u dhashay aad u mahadsantihiin salaamullaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu shirkana waa inoo xiray dhawaan loo doorto guddoonka baarlamaanka laguna xantino Turkiga saaxiib leeyahay wararkaas ayaa caawa qaybtan ugu waaweyn wixii soo korra waan eegi doonaa